dhulku wuxuu noqday xaaluf xoolihii lagu tiirsanaana waxay noqdeen kuwa gabay kaalintii lagaga tiirsanaa ee dadka ay u geli jireen kuwa gabay bay noqdeen sidaa darteed dadkii wuxuu noqday xaaladii uu ku tiirsanaa xoolaha nool ahayd markii ay gabeen xooluhu dee wuxuu u baahan yahay xaalad gurma degdega waxaanu la hadlaynaa oo marka hore baahidaa bixin kara dee ilaahay baa bixin kara marka labaad cidda aanu la hadlayna ee baahiyaadkan u gudbinayno kow waxaa ka ah gobolka sanaag siibow degmada Ceerigaabo gudoomiyaha gobolka siyahayaha gudoomiyaha degmada waanu uga warbixinaynaa warbixinta waajib nagu ah wax qabadkana iyaga laga rabaa waxaanu kale uga warbixinaynaa xukuumadda Soomaaliland oo ugu horeeyo mudane madaxweynuhu golayaasha shacabka ciddii kale ee wax ka geysan karta oo dhanba dabadeed waxa ka jirta abaar baahsan oo dalkaba ka jirta haddana si gaar ahaan bay u saameysay laba naq dayrtii iyo gugii midna ma helin dabadeedna abaartaasi waxay noqotay adaar lafcada dadkii iyo xoolii aad bay isula liitaan ilaahay baa baahida tira laakiin waxaan u sheegaynaa bini'aadanka ama dawladda ama hay'adaha inay baahida inta leega baahsani jirto oo ay abaartu ugu weyn tahay duruufa caynkaas baanu ka hadlaynaa degmadu inay degmo fara badan tahay in la isugu soo guuray biyaha awgood xoolihii dhul caws lagala doonay oo ay ka soo aroori kari waayeen baa jiro ay ku ooman yihiin oo ceelka eeriyadiisa soo aroori kari waayeen oo biyo dhaam suga baahay hanti loogu geeyo biyahana dadkii way iska waay aad iyo aad ba halka loogu cadilan yahay waxaanu leenahay markaa dawladdu iyo hay'adaha deeqda bixiya ilaah baa deeq bixiye indha furan ha ku eegeen hawsha badanaa halkan aan goobtan aanu maanta ka hadlayno codkeedu ma gaadho xukuumadda annaga lafteedaan dadaal ku samaynin annagoo dhabarada ugu samayna run ahaantii baahiyo badan oo loo baahan yahay sida waxqabadka aanu soo sheegnay oo aanan dee cidna ula qaban laakiin aanu annagu qabsan ceelka waa laga soo warbixiyey hadalkii iga horreeyey yacniga waxa weeye ceelka annagoo haraad u bakteen oo halkaa waran ayaa ilaahay wuxuu noo sakhiray gabadh qurba joog iyo annaga oo iskaashanay baariiga saaray meesha intaa waxaan ugu soo raaco oo nagu heliyay hay'adda la yidhaahdo keer oo runtii aanu aad ugu mahadnaqayno wax gacan ah xukuumadda weli alaanaanu kaga haynaa ma jirto hadday dararkii tahay hadday kaydkii tahay hadday shaqaalihii nooga shaqayn lahaa oo dee meel la waafajiyo meel lagu tiiriyo tahay midna kama hayno xukuumadda intaba waxaanu ka doonaynaa inaanu maanta codkayana aanu ku gudbinayno ku helo baahiyaadka iyo duruufaha yaalla halkan anigu yar baan ku daraya inta yar waxa weeye baahida horta ilaahay baa daboola cid kale ma daboosho laakiinse waxaanu doonaynaa madaxweynahaanu duco ka doonaynaa inuu noo duceeyo